السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dad badan ayaa iga codsaday sida wifiga magaciisa iyo passwordkiisa loo bedelo. insha Allah si gaaban ayaan halkan ugu hadlaynaa haddii ilaahay idmo. midka ugu horeyso isku day inaad fiilada internetka haysatid oo computerka ku xirnaado iyo ama mise wifiga oo ku xirnaado, laakiin waxaan ka jeclaa lahaa adigoo fiilada caadiga haysatid. okay ka bacdigisna meeshas click dheh. haddii Windows 7 mise 8 wad meel walba waxaa wadatid ba ku dhufo searchiga hoostiis cmd ku dhufo cmd midkaani calaamadana ku soo bixay comment prompt ay leedahay enter dheh. okay meeshan hoose waxaa ku qoraysaa ip configuration. okay internet protocol configuration laga soo gaabiyay, no problem. waxaan isticmaalaynaa default gateway inaan raadino waa meesha ku qoran saan hawshan u dhameystirno. okay midkan lambarkan ujeedad kan hoose inaad xifdisid isku day aad meel ku koobiyeysid. مثلا waxaa dhigi karta okay notepad aa soo qaadan kartaa, geesa u lexji kartaa. waxaa dhigi karta okay laba konton afar waa soo koobi kartaa. control a c koobiyey oo bacdeen select all and copy. waxaad ka bedel waxaa aadaysaa waxa la yiraahdo routerka inaad aadid. waa isku day meesha taalo hoosas lambarka soo koobiyeysa meesha ku qor paste dheh mise dhig bacdeen enter dheh. okay sidaan ay ku soo bixiyso. hadduu sidaan aysan ku soo bixin markaas waxay u dhigmataa in shirkadda aad internet ka haysatid in si kale isticmaasho. qaarkood sidaan ma isticmaalaan, qaarkood lambar kale ay isticmaalaan, laakiin lambar walba isticmaalaan laakiin no problem. google-ka ay ka dhex raadi kartaa, shirkadda magaceeda qoraysaa, vodafone camal waa dhihi kartaa vodafone router login camal markaas tafaasiil dhan waa helaysaa. miss default wax un lambarkiisa kulligiisa waa helaysaa ka gudub. okay meeshaan kasii baxno. okay ani haddii sida ay tahayna okay bacdigisna ana hadda passwordka waan bedeshtay. haddii waxaana aragtidna insha Allah haddii passwordka aadan ogeyn xataa google ku qor مثلا router default password iyo waxyaaba kale waa dhihi kartaa. google kusii qor, google sheekada ah. okay markii aad gashid routerka dhexdiisa waxaa arkaysaa inta oo yani oo internetkaaga mobile ha noqdo ipad-kaaga ha noqdo computerkaaga laptopka ha noqdo inta uu ku xiriiro. ma fahantay? had intan ku 2 3 4 5 6 7 shay aan kula xiriira. okay meesha suuqaba ka dhigay. okay no problem. okay kan status-ku waaye laakiin waxaa aadaynaa meesha la yiraahdo network setting. ka bacdi waxaan ka dooranaynaa wireless. waxaan wax kale loo isticmaala laakiin wireless kaasa muhiimadeen ah. okay hadda hoos sii socotid kan muhiim waa inuu shidnaado meeshaan u sii saarnaado, kan heatkan ha saarin. okay inta waxa ku qoran name ku qoran asaa ujeedid meeshaas waa magaciisa ku bedela lahayd. waa anaad magacayga jakuka u yahay aan si caday hadda aragtidna fiiri oo arki kartaa jakuka oo meesha uu sii qoran. yes okay haddii hore usii socno intan waxaa ku key furaha lagu gali lahay. furahana magacana uu yahay 255 camal. okay waa bedeli kartaa, waxaa aragtaa ka dhigi kartaa meeshaas haddii waxaa aragtaa aad ka geli. ka bacdigiisna hadda markaad dhamaysatidna kan ku dhufo save wixii aad agtaada ku yaal oo luuqadaada ku ah cancel iyo waxyaaba kale meesha ku laakiin apply of save wax un dheh or save. okay ana laakiin hadda cancel ada because aan marweyna passwordkii hadda aan bedelo hore u badishtay. mar walba bedeli karta laakiin waqti qaadanaysa hadda in mobilada dhan haddana aan password cusub aan siiyo. okay ka bacdigisna haddii aad wireless isticmaali, haddii wireless ahaan aad soo gashay meesha kan waa ka taga midkan waa ka baxa
markuu kaa taga magacii aa u badashay aa meesha ku arkaysaa iyo passwordkii aa ku badashay isla markaa aa ku gali kartaa. haddii yani dhinaca wireless ah haddaad aa kusoo gashay, haddii koronto ahaan kusoo gashina soo maha waa kaasa no problem, mobilkaaga ka dareemaysaaba asdhanba wax dhan ka bixiyso shabakada dhanna ka baxaayo. okay waxaan rajeynaya insha allah sidaas inuu waadix uu ahay. haddii wax ay jiraan insha allah commentiga hoos oo kusoo qori kartiin wixii cabasho ah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.